dadkii waxay weydiiyeen ma u soo duceysay dadka ahlu qabuurta markaas ayuu yiri duco iska daaye xitaa waan wada sheekaysanay dadkii intay ku qosleen ayay waxay ku yiraahdeen maxaad ku sheekaysateen kadib ayuu wuxuu yiri waxaan weydiiyay ahlu qabuurtii goormee ayaad halkan ka guureysaan assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh soo dhawaada akhyaarta meel kastoo dunida ka joogtiin waa walaalkiini maxamed ali ahmed halkan nagala socoteen waa xasliya media marka hore muuqaalkaani like saar sidad far badan u gaaro haddii halkan ka cusub tahayna subscribe noo saar aad iyo aad u mahadsantihiin nin saalixiintii ka mid ahaa ayaa wuxuu maalin booqday qubuuraha markuu yimid xaafadda ayaa waxaa la weydiiyey maanta halkee ayaad aaday markaas ayuu yiri maanta waxaan booqday dad haddii aad la joogtid aan ku dhibaynin haddii aad ka soo tagdin aan ku xaminaynin markaas ayay dadkii waxay ku yiraahdeen waa kuwee dadkaas markaas ayuu ku jawaabay waa ahlu qabuur dadkii waxay weydiiyeen ma u soo duceysay dadka ahlu qabuurta markaas ayuu yiri duco iska daaye xitaa waan wada sheekaysanay dadkii intay ku qosleen ayay waxay ku yiraahdeen maxaad ku sheekaysateen kadib ayuu wuxuu yiri waxaan weydiiyay ahlu qabuurtii goormee ayaad halkan ka guureysaan markaas ayay dadkii ku yiraahdeen maxay kugu jawaabeen markaas ayuu yiri ninkii waxay yiraahdeen waxaynu halkan ka guureynaa markaad noo timaadaan dadkii intay ku qosleen ayay waxay ku yiraahdeen waxaad ka hadlaysaa qubuuro iyo waxyaabo maala yacni ah magaaladii rootigii iyo ciishkii waxay noqdeen kuwo aad qaali u ah markaas ayuu ninkii wuxuu ku yiri hadal u dhigma sadatan calaynaa an nacbuda kamaa amara وعليه أن يرزقنا كما وعد أو معناه يحي aniga waxaa dusheena ahaaday ilaahay subxaanahu wa ta'ala inaynu raali gelino siduu amray allahna waxaa dushiisa ahaaday inuu na arzuqo siduu noo ballan qaaday sheekadani waxaad ka dareemaysaa in ilaahay subxaanahu wa ta'ala uu yahay idda qufilib arzuqa inna allaha yarzuqu man yashaa'u bighayri xisaab dad fara badan ayaa waxay aaminsan yihiin irsaaqda inay ku timaado orod fara badan ilaahay subxaanahu wa ta'ala ayaa irsaaqda bixiya qofku waxaa la rabaa inuu ilaahay subxaanahu wa ta'ala ku kalsoonaado ilaahay subxaanahu wa ta'ala waa alla razaaq inna allaha huwa ar-razaaq dhul quwwati al-matin qofku waxaa la rabaa inuu ilaahay subxaanahu wa ta'ala aamino qofkan waxaa dareemaysaa inuu yahay qof ilaahay subxaanahu wa ta'ala aaminsan wax waliba ka hormariyay raala ahaanshaha ilaahay subxaanahu wa ta'ala faa'iidada sheekadan ku jirto waxaa kow ka ah faa'iidada ay leedahay in la booqdo qubuuraha rasuulka sallallahu alayhi wasallam waxa uu yiri booqda qubuuraha waxay idin xasuusinayaan geerida qof waliba maanta wuxuu rabaa inuu xasuusto geeri ilaahay subxaanahu wa ta'ala dadka ahlu qabuurka ah wuxuu ka yeelay dad ka sugan cibro qaadasho qofkii adduunkan joogo ayay waxay u yihiin cibro qaadasho qofkan waxaa laga rabaa inuu qubuuraha mar uu booqdo waxaan rajaynayaa walaalayaal inaynu wixii maanta ka dambeeyo aynu ku dadaalno inaynu ilaahay subxaanahu wa ta'ala aan raali gelino cibaadadeenan aan iska saxno qisadaani waxaan rajaynayaa wax badan inaad ka faa'iideeyeen muuqaalkaani meel fog gaarsiiya youtube-keena subscribe noo saara aad iyo aad ayaad u mahadsantihiin intaan muuqaalkan muuqaalhiga aan ku kulmi doono sidaas iyo nabadgelyo wassalaamu calaykum waraxmatullaahi ta'ala wabarakaatuh